بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هو إنجنير أسد عبد الله الكتيري أكس كمبني للجوبا انتربرايز رير بدر إدرس كل شيء. تاريخ ذي مركز هاد لابد يكون يتبني تدوّد بشي كواد يا نكل يا عبد الفتاح عمر حراني إسلا وقت أثناءها أفاينك قبل كبنادر ayaan guri ka kireeyay gurigaasayto isaga waxa ii keenay min dalaala ninkaas dalaalka ayaa wuxuu ninkan guri u baahan oo masuul nin dawliyo masuul ahaan aan guri ka kireeyay waxaan maaragtay kala qoranay heshiis bish 6 bilood lacagtooda bixiyay January oo 17 ilaa iyo January bish 6 June oo bixiyay wixii ka dambeeyay heshiiskana waxa in 6 bilood u bixiyo wixii ka dambeeyay inuu lacag bixiyo uu diiday inuu gurigayga baxana waa diiday soo markaa power family iyo power dawliga ama shaar dawlad iyo adeegsanay marka waxaan ka dacweeyay degmada Cabdicasiis bishii 6 ayaa waxaan ka dacweeyay oo bishii 7 oo sanadkii naga tagay 2017 ayaa waxaan ka dacweeyay degmada Cabdicasiis gurina xaafada Cabdicasiis ku yaala gudoomiyaha degmada uu awoodi kari waayay xataa inuu suuqa keenaniyo isaga marka runta ka hadlo because markastaba anu wuxuu dhigi jiray inuu bari dambe xagga tahay sidoo email daalinay isla isaga ayaa wuxuu iga dacweeyay saldhiga bari ee Ex Orientale xaafada Cabdicasiis ayaa wuxuu iga dacweynaya Cabdiftaah Umar Xalana saldhigii ninkuu u tagaayo wuxuu aan saldhigaas degan wax badan degmada deganaa yaqaana guriyeen hantideena wuxuu u sheegay uu ka diiday wixii wax macquul ma aha dadkaasna waan aqaana waxa yeelaysaa waxba kaagama ay dadaad wax guriyada maalgelin karto hanti ku sameyn karto ma waxa yeelaysaa niyo aniga ma yeeli karo isla maalinkaas oo stationka laga wacay aan tagay oo ninkaas oo ii sheegay saas uu ku yiri wuxuu iga wacay haddana maxkamadda gobolka Banaadir isagoo warqada la keenay warqadii maxkamadda waxa biri imo biridii aan tagay dacwo uu isaga qorto ayaa la keenay leeyahay intaas oo $1,000 ayaa ninkan gurigiisa gashay ijaara ka gaastay saasan yeelo wax noocaas amal ninkii oo garsoorka ahaa wuxuu yiri okay waa aragay wixii uu arkay ee ka soo jawaabay marka ka soo wuxuu guriga documentiskiisi ii keen maalinkaas talaadan joognay khamiista documentiskii oo adoo wadato iyo guriyihii hantidiina wakaalada u haysata keen wixii aan soo qaaday ciidamo oo ii sheegay ciidamadan oo baawarkan oo ii sheegay Cabdibilaahi Soomaaliya aan wato ayaa ii imaaday anigu marka guriga ka soo baxay gaariga ku horgooyeen macala computerkayga mobilkayga way iga qaadeen ma bant way iga tageen waxaan ku tagay maxkamadan tagay maxkamadii wuxuu igu dhahay oo wax macquul ma la imo document sura isla markii hadalkan kala dhaafay isla markii saa igu dhacday degmada Cabdicasiis meesha la jiray Ex Mama Khadiija ayaan wargeliyay special nin la yiraahdo Yusuf Xundubay oo markaas amniga haystay ayaan wadi Yusuf wuxuu isii jawaab ah ma aha yiri aniga baabuurka tilmaamtay iyo noocaas ma aha yiri baabuurteeda way joogeen wax noocaas igu qanciyay waxaan u tagay garsoori waxaan garsoori asaas wax igu dhaceen saas arinta wuxuu yiri aniga war badan mar waxaaga soo raasay ninka waxa ku dacweysay ninkan attacking noocaas igu sameeyay even hatta guriga sabroogiisa isaga ayaa haystay ma fahamtay waan soo baxay waxaan imaaday Allah musta'an anoo arinta halkaas ii marayso ayaa haddana CID laga wacay isaga dacway CID nin yaado Maxamed Xuseen Sanleere oo Cornel ah isla markaa isaga hatta guriga deganaan jiray ayaa ilaa kiiska loo geeyay isagii kiiskii markuu arkay wuxuu dhahay orniyo waxaad yeelaysaa waxaan aqoon fiican u leeyahay waxa yeelaysaa arintan iska daa ninkaas sida xaqa u kala baxa uu ka diiday kiiskii wuxuu ninka aniga kalsooni kuma qabo waa laga wareejiyay nin kala loo dhiibay oo liyaado Cabdiftaah Shaati kiiskii uu soo gooyay isagii wuxuu u hanjabaaday inuu dilay haddana hawshan ka hari waay and then haddana labadii sarkaal oo hawshaas wado CID-da ayuu haddana hortooda ku hanjabaaday oo yiri waa dilay ninkan ayagii waa ii sheegeen qoraalkii taqriirka soo qoran dhaaladika taqriirkii qoran waxaan leegeeyay Allah musta'an maxkamadda gobolka Banaadir qaybtan xeeraalinta ninka hadda gobolka Banaadir maxkamadda gobolka Banaadir ka ah
gudoomiyaha ayaa markaas wuxuu ka ahaa kusime oo ii sheeg xeer ilaalinta oo ii wacay waa saan wuxuu bridii baan imaaday bridii markaa imaaday wuxuu marqaatiyaashaada wixii aawo macala dalaalkii marqaatiyaashii iyo nimankii guriga markaan dayactiraya joogay oo dhisan ayaa imaaday wuxuu yidhi waxaas inuu warkooda ugu dhegaysan waaye af buuxuu wuxuu igu dhahay kiiskan ilaa aniga mar damba kaa waco ma la soo hadal qaadi karo waay igu wacaysa mar dambaan ku yidhi haddaan taaganahay taqriirka c i d da waa kana ninkan wuxuu igu sameeyey wax kasta caddayntooda waa ku haya wuxuu yidhi ninkan hala xiro aniga ninkii dalaalka ah yidhi hala xiro waxaan dhahay ninkan la yidhaahdo muuse dalaalkii waana la xiray waana la kaxiyey markaan dhex sii marayna lambar 4 x equatora marayno ayuu telefoonka soo daba diray wuxuu yidhi iska sii daaya kiiskaanaytana ma ka hadli kartaa laygu dhahay waa kama hadlin kama aamusin ma ka harin waxaan u tegey generaal liibaan yarow aan u tegey generaalka wuxuu yidhi okay maxum haddii nin dulul ma dhici karo yidhi bal waa ogaanayna arrinta way soo raacay wuxuu la yimaada xafiiska xeer ilaalinta muusuu kiiskii ka soo qaaday nin la yidhahdaa sheekh xasan ayuu u dhiibi sheekh xasan wuxuu yidhi kiiskan adiga soo bar sheekh xasankii kiiskii markuu dhowr baris kusoo kii daba celinayo maalinka kale oo dhowr toban beri ka bacdi wuxuu igu dhahay waxaa yeelaysaa waxaan kuu soo diro nimankaasayte arrintan negotiation kala soo gal iskala soo heshiiye waxaan ku yidhi ninkaas niman ehelkiisaan kuusoo diro waxaan yidhi aniga wax eheliya ma rabo iyo wax laga galaayo dhexdhexaadin ma u baahni sharcigaasayte wuxuu qabaa in laygu fuliyo ama wax laygu furshaana diyaar u ah wuxuu yidhi kiiskaaga markii dambe wuxuu yidhi maba aha madani kiiskaaga waxa dhacay oo dhan oo ilaa xoor ilaanta si adii wax u mar wax dhan qalad ay ahaayeen kiiskaaga madani waaye waxaan u gudbi yidhi maxkamadda gobolka banaadir goormuu dhahay 2 bilood ka bacdu ii leeyahay marka hadalka i meermeeriyey oo aan meel wax ka qabto aan waaye iska aamusay aan 2 bilood ka bacdi wacay masajkii aan xataa u qoray waan hayaa 2 bilood waxay bishii agoosteed ma fahanti marka juun iyo juulaay wuxuu waaye jawaab waa isiin waaye anaga ku wici doonay igu meermeerinayeen juun iyo juulaay way dhammaatay agoosta ayaan la hadlay telefoon aan u diray waa iga qaban waaya masaj aan u qoray waa iga soo jawaabi waaye waa la joogay muddo ka bacdi haddana aan ku laabtay wuxuu igu dhahay kiiskaaga madani ah waxaan u wareejiyey maxkamadda muusa weydiinaysaa muusena waa ninkii aniga dhahay oo ku xir hadda arrintaa ka hadasho ma fahanti marka haddii sharci nidaam jiro waxaan ka codsanayaa dowladda soomaaliyeed isbishada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha wasiirka arrimaha gudaha duqa magaalada injineer yariiso hiinow way garanaya injineer yariiso aniga nin injineer oo jaamiciyo ka baxay jaamacadda gahayraan ahaa ninkaas waxaan ka codsanayaa in ninkaas sharciga nagu kala saaro ma fahanti guriga ha la tago dariska ha la weydiiyo wixii qaladoo igu soo baxo yaana bun laygaga dhimin laakiin ninkaa wuxuu ii sheeganayaa awood dowladnimo iyo qabaa'il aniga nin yamani oo soomaali muwalad carab soomaaliya ayaan ahay ma fahanto dalkan soomaaliya aabiis ku dhashay anina ku dhashay in fact waxa dadka dowladda ku noolaan kara ama dowlad ku noolka ama dowladaha harsada ayaan ka mid ahay miyi dadka awoodda la taagan banaanka la taagan miyi sida hadda ninkan hadda koor wuxuu igu yidhi xataa markaan wada hadalna wuxuu igu dhahay adiga carab wax badan oo adduunyada ku leedahay inaa xataa gabar igu dartaan ahayd kuma inaa guri weydiisa xataa ma ahayn oo igu yidhi markhaatigeedana waan hayaa 3 nin oo waaweyn oo muqdaro islaan ummata maxamed ayaan u hayaa haddii islaamnimo jirto dowladnimo jirto nabad iyo nolol waxaan ka codsanayaa ninkaas in sharciga ilaahay nagu kala saarto iyo sharciga dowliga oo u yeelo qawaaniinta u taala dalka intaas ayaan codsanaya waxaa kaloo ii weheliya tahdiidka gurigayga xataa jidkiisa ma mari karo adiga gurigayga iyo gurigaas labadeeda guri waa isku dhoweyn agtiisidaa soo maray in 5 xabood laygu dhufto ayuu amar ku bixiyey raggii joogo markhaatiga ka ahna waan hayaa waan keyn karaa si ay u leeyihiin waa soo istaajin karaa diilba la dhegaysanayo aan ahayn sidii muuse ii galay haddaydan ahayn wadad dhegaysanaya haddii lahay waa keyn karaa waana imaanayaan waana kitaabka ilaahay xataa kaga baxayna la mari karaa marka intaasayto ayuu codkaygu kooban yahay codsigayga waxaa waaye waxayga ha layga siiyo wuxuu lacag uu bixiyey waxaa ugu dambeysay June 17 up to now 1 penny kama hayo gurigaygana wuu iska haystaa marka hadday dowladnimo wanaag iyo sharaf jiro waa in waxaan rabaa in dowladda ay si asxaano islaamnimo dowladnimo soomaalinimo inuu waxayga ninkaa layga siiyo tahdiidkii ugu hayana laygala hadlo continue ciyaalkiisa staafka way soo wacaan haddaad jidka maro ama ilmeyga ay maraan way soo wacaan waxay ku leeyihin waa ku dilaynaa la yidhahda ama waa ku yeelaynaa waa ku samaynaynaa ma fahamti marka hadduu sharci jiro nidaam jiro ninkaa isagaa ha layga qabto waxaygana ha laygaga qaado hana layga siiyo intaasoo bilooda lacagna waa ku leeyahay marka calaa guri bishii wuxuu waa kiraysaan $250
up to now ma bixin June 17 to now wax shilna kama aan hayo wixii waa u baahanay gurigeyga waa u baahanay almost duu sharci nidaam jiro ninkaas laga saaro especially ra'iisul wasaaraha khaasatan ra'iisul wasaaraha duqa magaalada iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo taliyaha ciidanka booliiska aad iyo arintaas aad kaga codsanahay haddii jirto Soomaalnimo iyo ay jirto wax la yiraahdo ishaq isxaaq dhowrid iyo sida ay ku qudbayaan ishaq madaxda Soomaaliyeed haddii exactly wax ka jira wax laga qabanayo dad badan oo kale looga qabtana waan arkay hadda aniga intaas wax u aamusaa media uga hadli waaye waxa way xataa engineer yariiso aniga hadda kor waxaan ku kulanay stadio Conis waan u sheegay xataa si faaca u wada hadal u sheegay nin buu igu reebay ninkii emeeri oo ii suurtoobaysay laakiin haddii aan la kulmi lahaa waa isdhihi lahaa inuu injineerka wax ka bedeli lahaa marka sidaa darteed waxaan ka codsanayaa dowladda iyo madaxda sharafta leh Soomaaliyeed inay arrintaas wax iga dhahaan khaasatan ra'iisul wasaaraha wasiirka arrimaha gudaha taliyaha ciidanka booliiska taliyaha CID-da waa ogeen korneel la yiraahdo maxamed xuseen sandheere waa ninka taqriirka xataa inaa maartay soo qoray taqriirkiina waan hayaa ninka la yiraahdo ishaq xeeliyaalihii joogay degmo ay joogay maxkamadda ninka Sheekh Xasan xataa warqadayga qaar oo kala reebay waxba ka kala dhiman maalintii ma fahanti kadib wuxuu leeyahay hadaa waxyaha soo buuxi warqadaas ka maqayn maalintii aan warqadada kiiskooda complete ay CID soo wareejiyay ninka soo wareejina waa nin isla hadda ka shaqeeya xafiiska gudoomiyaha maxkamadda Cabdifataax Shaatiyaal hadii Ilaahay ka cabsanayo Soomaaliya waa la weydiin karaa intaas uga baxay. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.